السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة عدينتا قيمها دولة عدينتو أي ليدهي. دولة عدينتو وطبيعات وأستان كمرقاتي كعيسى فرحات فرفرنان يسو دوين. دولة عدينتو وحي سفضت أساغدا قف ولبا وحينا قلبينا نجلسا ترين محبو أما جعين يوكل سوني آتو فربضا قف كستو مسلمة وحو أباهي إنو هرمريو طبيعات دولة عدينتا وهدرين فرحادات oo ku xasilayo kan dhoola cadeeyay qalbigiisa iyo kan farxada loo bandhigay labadaba. dhoola cadeyntu waxay hoos u dhigtaa in jirkeena uu soo daayo yacanada dardargeliya walwalka iyo walaaca. waxaa nafteena daaya culayska qalbigeena wuxuu ka helaa deganaan iyo naxariis. faa'iidooyin badan ayay leedahay in aad kordhiso dabciga dhoola cadeynta iyo muusoodka. waxaa ka mid ah faa'iidooyinkaas koow waa sunne ayna tahay inaan kaga dagino nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam waana sadaqo iyo ajar aad ka helayso liibaan. midda labaad waxay sare u qaadaa wax soo saarka shakhsiyadeed farxad gelinta dadka kale iyo firfircoon jirka waxay fududeysaa in si howlkarnimo ah loo qabto hawl maalimeedka. saddexaad waxay farxad gelisaa bulshada waa xeelad aad ku kasban karto bulshada kugu xeeran ama kugu hareeraysan. dhoola cadeyntu waa hubka ugu khatarsan ee aad ku ugaarsan karto qalbiyada dadka kale. midda afraad in aad tahay qof mar waliba dhoola cadeeya waxay ku sahlaysaa inaad noqoto mid faraxsan dadka jecel yahay oo firfircoon taasi oo ku sahlaysa in aad kobciso xanaankaaga hogaamiyadeed. midda shanaad dhoola cadeyntu waa luuqad oo qof waliba fahmi karo da' waliba uu jiro iyo xaalad waliba uu ku sugan yahay. intaas waxay ahaayeen 5 ka mid ah faa'iidooyinka ay dhoola cadeyntu leedahay. hadaba waxaan soo qaadanaynaa 3 tusaale oo ka soo dheehnay diinteena wanaagsan. tusaalaha koowaad mar waliba oo aad walaalkaaga u dhoola cadeyso waa sadaqo. waxay noo sheegay nabiga محمد صلى الله عليه وسلم هذا dhoola cadeyntu waa sadaqo. tusaalaha labaad saxaabiga la yiraahdo Abdullah ibn Harith radiyallahu anhu wuxuu yiri waligay ma arkin qof ka dhoola cadeyn badan nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. tusaalaha saddexaad sidoo kale saxaabiga Jaabir ibn Abdullah wuxuu yiri tan iyo markaan soo islaamay nabiga sallallahu alayhi wasallam kama daalin inuu dhoola cadeeyo mar walba oo yarko. hadaba wax waliba oo nabiga ku dhaqmi jiray ama sameyn jiray sallallahu alayhi wasallam waa inaan ku dayano dhoola cadee sababtoo ah caqkugu ma fadhiso. ugu dambeyn awoodda kuma jirto inaad bir culays qaadi karto balse waxay ku jirtaa inaad dhoola cadeyn ku qarin karto murugtaada. hadaba ku qari murugtaada dhoola cadeyn. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.